أنا وحنا لا يابنها أنا قبلها لما بيابني أنا وحنا بقى لا يابنها waxay tahay ninkaas rag miyuusan ku tashin taga oo birina nin kale laga raaca waa sida gabadhii hooyadeed 9 bilood meel cilla ugu tagtay adig ma ku daahayso jaceyl waa la helaa anigu waxaan Soomaalida ay sheegto hindiga ay ka daawadaan jaceyl war jaceyl waa la helaa laakiin waalid lama helo anigu waxaan aaminsanahay waxay tahay waalidiinta Soomaaliyeed inay waxyaabaha aan ka dhaxgala lahad qasda aabaheed uu diiyey itiri guurso aniga ahayd waanan diiday waxaan ku yiri aabaha ya aniga aabaha waa muhiim bari hadaan aniga adigu isku soo dhacno de aabaha waji kama helaysid marka inta aniga intii aabaha uu waalidka meesha ka bixi lahaa ana meesha ka baxay waxaan ku yiri raalin ah ku soco oo run hadda cali fam project ko badisay gabadhaas ma fam project ma wallahi abdi waa ku salaam saaxiib ku salaamay thank you har mar ku soco hadda xasuus baan galisay cali maya waa sida waa sax xitaa ilmahaas ay dhashay ilmaha aan abtigood u qalbi fiyoobeen habeertooda aan u qalbi kartid markii aad tagto acuudu billaah lagu soo dhahayo ama gafuurka lagu taagayo ama sadadaadii raali kaaga ahayn ama sadagaaga uusan raali kaaga ahayn soona ko maquus hadalkaaga aad u macaan yahay si dad kale wada ku soo waalidiinta Soomaaliyeed fadlan inay guurka fududeeyaan gabadha hadii jaceyl aad u qabtana aad waalidkeeda ka doonato aan dhihi lahaa oo aan gabadhaas masaakiinta ah mustaqbalkeeda looga ciyaarin oo aan luboobin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala thank you aad baad mahadsan tahay waxa cali ku soco qadarow barnaamij baa socda waan ku ka qadarow hal mar line baan ku soconaa queue baan ku soconaa barnaamijku hana loo bin garay meel xasaasi ayuu mariyaa barnaamijku منصر يا أصحاب كلايا وايد أفتى من اللي قدر كراني نك أوكي كسو ها كسو عبدو السلام عليكم وعليكم السلام يا صاحبك نيجي عليه منصر صاحب السلام يا أوكي ثانك يو قف كهذا يا أنا فيري فضلا فهم قفك أضربت أنا سلامته أو سقاس أو سلامته كون كبر سو جارو وقف أيديسو كسو ها ما يقول لك السوق لين كان horta niyo asxaab dhamaan inta meesha ku jirto horta waan salaamayaa dadka dhan waxaan moodaa in ay horta ay hal meel ay xooga u yara badan yihiin anigu ahaan taladeeda horta niyo wax walba waxaa la fiiriyaa wax walba xun waxaa la fiiriyaa maxaa ka sii xun Soomaalidan waxaad moodaa inaysan aan aqoonta inta leg aysan gaarsiisanin horta niyo khudbasaradu waa laga fiican yahay ha laga fiicnaado ma xume laakiin maxaa ka sii xun waxaa ka sii xun inay macsidu badato kufsigu bato dambiyadu ay bataan nin waxaad arkaysaa soo awooda oo dhaqan kara oo gursan kara in la yiraahdo ma taqaanaa ma awoodid iyo ma geysid iyo waxyaabo badan baan u soo taagnaa marka anigu waxa ila qurux badan in khudbasaradu ay wacan tahay haddaad awoodo oo dhaqanayso oo ay xalaal dhaba aad raadinayso oo aad way sax aad ku raadinayso oo wax aad u wanaagsan oo ma taqaanaa la dhihi karo hore ugu socdo laakiin lama fiirin karo waalidka qof walba waalid waa dhalay waa wanaagsan tahay laakiin waalidku waxa laga yaabaa sometimes inay khaldan yihiin waxaana ku dhowrsanaan kartaa dambiga iyo macaasida iyo kufsiga especially wadankeena hooyo kufsiga faraha badan maxaa keena waa in la fiiriyaa waxani maxaa xun maxaa ka sii xun kufsiga qof labada qof hadday ogol yihiin ay wanaagsan yihiin ay isdhaqanayaan ay ka go'an tahay anigu waxaan dhihi lahaa hore ha u socdaan marka waxaad leedahay intii kala iska دكتور ده سوما ba mtaqaana inta kufsan oo meelaha mtaqaana maalin walba waa aragnay gabdho badan waa aragtay wadankii waxa ka jira dhaca kufsiga waxa soo dhan waxyaabaha yareyn kara oo dijin kara waxa weeyaan inay qudbasiradu haduu ninka uu daacad ka yahay oo rabo inuu dhaqdo waa ninku macnaha dambi ma gelin oo wax qalad ah kuma uusan dhicin special wali wuxuu la sii tagaya wax meerinaya inkastoo ay wacan tahay in waalidku lagala tashado laakiin waalidku waxyaabo badan oo waxaan u soo taagnaa waalidku nin galbeed qabiil lagu sooco lagu qaalaha soo haysto awooda loo diido waxa kala fikra qudbasira kala fikra reerkii markaa loo geeyo gabadha ayadoo uur leh markaa ila marka hore wada hadal weydiidan Soomaa marka anigu waxaan taaganahay qudbasiradu
way xun tahay laakiin waxaa la sii fiiriyaa maxaa ka sii dhalan kara thank you aad baad mahadsan tahay ha ku dheeraan waa idin salaamayaa maygina waa idiin soo celiyay mudkaygaan ku laqonayaa thank you mudgal waxaa ku xigay oon korgeeyey shamsa ayaa ku xigtay oon korgeey shamsa ku soco waxaan salaamayaa dhammaan ku jirto horta qodob xasaasi ah oo aad loogu baahan yahay laga doodayaa ani shamsi ahaan horta diiniin haddii la horta kuma fogaan karo laakiin aragti ahaan qodbasirada horta waxaa sababi karo 3 shay sida ani ila tahay kow in sida ninka ragga ah yani dhaqaale familiyan oo dhaqaale ahaan asaga uusan awoodin oo reerka ay ku xujeeyaan gabadhin aad u jecel uusan ka maarmi karin way sabab gareyn kartaa qodobka labaadna waxay tahay gabadhii oo jecel asagii oo jecel laga yaabo in wax barasho safarada dibadda ay ku kala maqan yihiin oo ka baqay gabadhii inay nin kala la baxdo mise la siiyo mise lagu daro kalsooni ahaan ay ku muujin karaan qodobkaas bandhigid xagiis ay ka imaan karto gabadhin maadaama wiilka ay jeceshahay aysan go'aankaas ka diidi karin qodob labaad waa dhihi karaa tan saddexaadna waxay noqon kartaa ninkii oo hanti haysto dhaqaale ku filan haysto gabadhii doonan karo guursan karo faamilki gabadhii ka dhashay qabiil ahaan ay u diidi karaan misna si kale ay ku fogeyn karaan marka haddii si loo fiiriyo anigoo saddexdaas qodob cuskanayo xoogaa macquul inay noqon karto waa ila tahay shamsi ahaan aniga thank you aad baad mahadsan tahay munasar haddaad maqlayso ani mararka qaar khadka ayaa iga go'aya waxaan koo codsanayaa inaad barnaamijka daadihiso cali wiilka wixii xigta ayaa noogu iga booday faaduma lagama boodin taleefonkaaga refresh ku samee refresh markaa ku samayso faaduma lagama boodin ama waxaa laga yaabaa inaad baxday oo dib ka soo gashay laakiin mikrofoonka waa lagu soo marsi doonaa marka cali ay maraysa hadda cali samiiraan ku xigta cali maqal ma jiraa wiilka ku yaalaha wata waa ku maqlaa dhammaan asxaabta barnaamijkana noo biin gareeya fadlan barnaamijka noo biin gareeya munasar nala joog munasar haddaad joogto barnaamijka markuu taleefonka iga go barnaamijka ila daadihi qofka laynka ay maraysa taleefonka refresh ku samee adoo barnaamijka noo biin gareynaya cali bay maraysaa samiire ayaa ku xigta laynkaas ayaa ku soconaa ku socobo soona koob waqtiga yaree daqiiqadaha sikinkan horta dhammaan asxaabta aada u salaama special shaafino iyo shamsi sheekh mideeda kale barnaamijka maantoo dhan waa dhegeysanaya haddaa hore u socdo horta ma wax ilaahay baneeyey ama wax rasuulkiisa baneeyey midnaba horta nikaax aa jiro laakiin qudbasirada soomaalida banaysato oo meelaha kale wax loogu yaqaan nikaax wax nikaaxa marka waa laga yaabaa hal cilad inay banayso oo qofkaas ah in qabiil ama waalidkuu joogin oo kale ama problem kale laakiin sideeda banaanbo nikaax saxa ma ahan ilmaha ku dhashaneh dood ayaa ka taagan waa shibhu nikaax wax oo nikaaxa shabaha waaye ma ahan nikaax sax waa ka bax aad baad mahadsan tahay waxaad moodaa meeshan wax badan lagu kala faa'iidi doono gabdhaha ku jiro say wallaahi daa oo meesha ku jira laga yaabaa inaan waxaan waxba ka fahmin aan rabaa inaan yara update gareeyo waxa weeyaan gabdho haddaan idin fududeeyo sida ciyaalka xaafadda waa waxa aad u taqaanaan idinku boyfriendka waxa u taqaanaan sidaan yar qiyaasayo oo gabadhu ay ninka maaragtay iyadoon lagu meherin oon la siinin haddaana khaldanayn waa boyfriendka in meeshaas macnaha familkaagii oon ku ogeyn inaad macnaha isgoosataan isgoosashada way jirtaa laakiin marka waan ku soconayaa waxay maraysay samiira ku socda samiiro ها بسم الله أد بني السلام دمان خيارت مشكود جرت بعد السلام يعني سرد موح في عبا مسوحهم أنا كسمير أهم وح أنك أمسنه هو وحهم أنا يقول نيك الربا إنه مستقبل يفوت إيد يرصد وكان أبيه ويماله وحلا أنت وحلا أنت وكعري وح يقول بسرد يقولوا أردي وح إيد أنت إنه أبيه ويماله وده أدر اسكو كان فاتحة oo sidoo islaa hal ay ka tahay in igu dhiskaba dhacda ninku jecelna waligiis kaama dalbariyo meher xad iyo musuqmaasuqan ku jecel ama taajir ama faqri ahaado kii aabaha u yimaado waxaan oran lahaa gabdhahan iyo wiilasha jecelka waxa ku waashay jecelkuna wuxuu yimaadaa bacdal sawaaj yaa la iska waalid yaa la isfuudeen ninkii mustaqbalka raba gabaray waa kan aabaha hooyada u yimaado aabaha wuxuu kugu soo kariyaa ugu soo dhaqan
صبر أخلاق بالصبر أدون كمان مركي قابل إلى أقعد هذا بنم هرسدي والله وحق حن ما شرته مركا وحن أقول لها هل وجود دلالة وارد كي هذا شرفت هذا إلى نين ما أنت عيار كوجه لنا برنا عيار بكوجس الدرة لكن نين شرف اللوجوسي هذا حتى كل ما تدوح أجيا تنبي يفهم هذا أنا صبح السلام عليكم. ثانك يو والله dood aad u macaan barnaamijka hana loo biin السلام عليكم yaxya ورحمة maraysaa adeer muud gal safka ku socotaa yaxya ورهدي سلام yaxya دقات diyaar موت weyn الليني سلام تورتقات وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله وبركاته asxaabta biinka haysta waxaan ku codsanay asxaabta biinka haysta fadlan dadka biinka haysta iyadoon la dhamayn qof kale hanagu soo saarina barnaamijka lama haystaan ilaa abdulgelay u baahan yihiin gacanta xirayna marka may gacanta iska daa laakiin ha aqbalin iska dhimisle iska diid macnaha ku soco yaxya ku soco brother الحين مقيم naga joognay maana la wareysto وأبالينا لو سعدا in adeer sharaf aa leedahay waa ku jecelahay noo joog leenay maraysaa okay leenay maraysaa waxaan shukran yaxyaha laga gudbay ka gudub okay yaxya yaa ku xigay yaxya yaa nagu xigay okay waxa ku xigay safa ku xigta marka farash okay najmayu safa ku xigta marka xaggayga ka socda aniga ana barnaamijka idin wada refresh baan ku sameeyay barnaamijka safa iigu xigta safa marka line ka soo weero mashquulsan walaalo dhaaf insha Allah okay ka gudub najma yu gabadha barafka ku qabaysanaysa ku soco qudbasirada waan idin salaamay walaalka qudbasirada barnaamijka laga hadlayo qudbasirada ma qudbasirada boyfriend oo Yurub jooga miyaa aad baan idin salaamaya dhamaan asxaabta halkan ku wada jirto kullayba magaca halka ku qoran magaca dadka Soomaaliyeed haday maqlaan kullayba meel damqanaysa weeyaan in gabar Soomaaliyeed ama muslim ah in qudbasiro lagu sameystana ma wanaagsan iyadoo waalidkeedu ay joogaan walaayadeeda waalidkeed baa qaadi kara abeed marka laga tago walaalkeed baa qaadi kara marka in meel la iska geysto la iska soo musaafareysto wax wanaagsan ma ahan marka dhalinyarada Soomaaliyeed qaar baa koranaya lacag baa u geysay lacagtu iyo aqoontu marka hore tabac kadib guur wanaagsan baa imanaya marka haddaan ku idhaahdo qudbasiro soo ugu adkeyn lahayd Soomaa dabcan ha wixii la igu soo abaabiyay ee ku yeelay wardhigley wuxuu igu soo abaabiyay inaan qudbasiro qaadanin ilaa aan da'deedu xitaa ay ka noqoto intaasoo kun oo sanadood marka wax wanaagsan ma ahan gabdhaha waan kaga digaynaa wiilasha Soomaaliyeed waxaan oran lahaa $10 ba Allah ka dhigay wax shaqayso dabadeedna ku guurso laakiin iska dhaaf wax bire ilmahaaga xitaa u keenaya dhibaato ha sameeynin please marka thank you amasantiin thank you my sister waa ku adkays aade mudana cali samatan wariyihii inuu yahay baan jeclahay cali samatan my brother ku soco الفنان قرن عبدانك وسلام يا صاحب أبيك مدرسة ضمان شعب قلال كتيربا برنامج حساسي يلا قهر لياده آد مهمة horta dee guur waa guur sharcad buna ku fadhiyaa marka anugu saasaan u arkaa noqon mayso ra'yi maaha guur waa wax sharciya ku imanaya marka waa guur bisil iyo guur ceedhina yacyicood dee ma jirto guur yacyicooda marka guur bisil iyo guur ceedhina waxay ka dhigan tahay gabadhaas in nidaamkii aanay marin ninkaasina nidaamkii inaanu marin isla markaasna gabadha anagu rurqooyiga qodbasirada waa koonfur laakiin waxaan nahnaa anagu meherxad baa waqooyiga laga yidhaahdaa marka gabadha ninkaa guursaday gabadha aanu waalidkeed weydiisan dhammaan inta laga raba ee bixin karta aan weydiisan wuxuu u dhashay sababtoo gurigan marka la samaynayo waxa la rabaa inuu laba xaafadood laba waalid oo mid walba intaa ka sii farcamaso mid walba uu wax sii leeyahay hooyo habaryar leeyahay ayeeye leeyahay awoowe leeyahay waxaasii leeyahay waa gurigan iyo gurigan wuxuu yeelanayaa xidido fara badan iyo family si badan ayuu noqonayaa marka gabadha dee sida fiican loo doono ee la isa siiyo ninkaas nin xag walba ka dhisan buu noqonaya xagga hooyadii isaga dhashay iyo xagga sodohdii iyo sodogii iyo seedigii iyo
waxaasoo dhan marka ilmaha gabadhaa la xaday ay dhashay ayeeyo hooyana male awowo hooyana male abtina male habaryar male waana maba sii dhismaanba wax sii dhisma maaha oo guri sii jira maaha sida loo durayo oo aakhirka gurigaas uu iska baaba'aya marka anigu haddii aan intaan gabadha sheekaysto aan ku heshiino qudbasire ku heshiino horta barnaamijkan waxaa qolyaha xerta la yidhaahdo ayaa horta way aaminsan yihiin oo meelay ka eegaan waxay dhahay haddii gabadha waayo ama qabaneen waxbay dee u raadiyaan oo waxay ahdaan 70 kilomitr ama 80 kilomitr haddaad geysid oo meeshaad ka kaxaysid waxa weeye waa baabu ansax laakiin araggu sidaa maaha baan leenahay waxa waa la iskaga daba yimi waa in la joojiyaa gabadhii iyo wiilkii ama mar walba horta mas-uuliyadda waxaa qaadaya ninka wiilow gabadha aad qodbasiraysatay amaad meherxadka aad u kaxaysatay haddii ayba yeeshay jidka niyo kaga soo noqo sababtoo ah taasi faa'iido ma laha gabdhuhuna ha iska ilaaliya maan leeh salaamu calaykum thank you aad baad mahadsan tahay wariyuhu si fiican buu u sharaxay gabdhaha si wallaahida oo meesha ku jira iyagana waxaan jeclaan lahaa dadka sida luuqadooda aad u fahmayna u sharaxaan ay fahamsiiyaan waxaa noogu xiga qofka ugu qoran tahay ugaas cabdiraxmaan ninka ugu qoran tahay baa ku xiga ku soco ugaas mid baan ka galayaa ku soco soona koobo please 1 minute si aan dadka hoose usoo saarno 1 minute wax yar hala soo koobo brief yar ha laga bixiyo bas ku soco السلام عليكم دمانتين وين سلامية هدان برنامجكان عن كهذلو هرتا قطب السيرو أما مهرحات مركز هوري وحكي ما هذا وحيد دتكي هوري أما جوركي هوري أيا أصل لجيسوها صابتو أصل لجيسوها وحيد ما دام جوركاس حبلوه إقالي أهاين أو ضياش يكون حجرين عنتي تهايد سؤالان حوله أو كله يوحياهم بذا ayaa waxa ku kalifi jirtay in martaqaana odaga u tago ama ninka raadinaya gabadha marka odaga u tago uu dhaho niyo xoolo u baahanahay ama geela u baahanahay waxay halka ii dhig kadib gabadha ka hayso taasna waxay kaliftay inuu ninkaas ay ku adkaato kadibna uu gabadhii sidaa uu kula tago oo meel kale la aado guurka maanta ama guurka dambe horta ma jirto shuruud noocaas ah oo hadda gabdhaha lagu xiro oo gabdhihii hadda sidii hore ma ahan oo hanti iyo xoolo cid ku xirta haba yaraatee ma jirto marka I think waxaan malaynayaa inaysan jirin hadda iminka meel hanti looga qaato ama hanti badan marka waxa wanaagsan ragga inay horta marka ugu horeysa gabadha familygooda hadduu gabadhii doonayo oo danaynayo ama jecel yahay inuu horta marka hore family gabadha u tago ama geesinimo iska muujiyo oo u tago hadduusan wax haysto iyo hadduusan waxba haysanba haddii markaa filcilin buu helayaa ama qabiil ahaan ha lagu filciliyo ama wax kale ha loogu filciliyo kadib hadduu filcilintaas noqoto mid positive ah oo gabadhi lagu siin karo waa sidii uu rabay haddii ay noqoto mid aan positive oo negative ah oo gabadhii leeyahay niyow sidaan isaani waxa waaye suurtagal maaha dee markaas tallaabadaas way u bannaan tahay inuu qaado oo gabadhii uu mataqaanaaye uu meel kale la aado laakiin isagooba mataqaanaaye aan u tegin family reerkoodii inuu gabadhi iskala baxsado iskala carro taas waa khalad weeye waa wax khalad ah taladan gabdhaha siin lahaa iyagana waxa weeye ninka ragga ah oo de gabadha jecel maxaan ku rahdaa doonaya oo familkeeda ka dhuumanaya I think waxaan malaynayaa inuusan ninkaas dan iyadana ka lahayn sababtoo ah hadduu uu maanta de gabadha cidla ka helo biri ka maalin ay familkeedii iyo walaalaheed iyo ehelkeedii intaba ay meel cidla uga soo tagtay biri ka maalin markay de laba qoys ay meel wada degaan carab iyo labada daanba isugu dhawaan isqaninaan waa isku dhacayaan waa la isku rafan karaa familkii gabadha iyada dhankooda wax waji ah meesha uma yaalaan sababtoo ah nin cidla ka qaatay bay noqonaysaa gabadhaas hadda wixii ku yimaada gabadhaas iyada mas-uuliyaddeeda iskale marka gabdhahan waxaan kula talinayaa inay ka fiirsadaan guurkooda raggana waxaan kula talinayaa inay geesinimo iska baaraan oo familka gabadha marka hore u tagaan haddii markaas filcilintu aysan qancin markaas tallaabadaa ku dhaqaaqaan waa mahadsantihiin dhammaantiin thank you my brother samira ku soco samira gabadha dhakhtarada ku soco my sister maqal ma jiraa sister okay waan ka soconaynaa my sister barnaamijka inoo bingareeya
barnaamijku waa barnaamijkiini falowgu hadhow toor uu noo bilaabanayaa waa isfalow garaynaysaan waad isku nasiibsanaysaan hawshu way soconaysaa toobigana waa si fiican baanu result waan kasoo saarnaa Fatima ku sister go ahead adiga waa adiga ku xiga Fatima adaan kula hadlayaa Fatima abdi ku soo salaamaya laba mas'alaan midna in weydiinaya midna aan goob joog ka ahayo in ka sheekay thank you ku soo adigoo noo soo koobaya horta shaygan qudbasirada aha waxaan u maleynayaa inuu waqti hore uu soo biloomay uuna hadda u yahay sanadadan uma bilaaban hadda ka hor baan waxaan la kulmay gabar qudbasiro lagu qabo okay ku soo waxaa iri ninka wuxuu leeyahay xaas waxa uu leedahay 8 caruur aha magaalada Muqdisho ay degnaa ganacsado ahaa gabar buu guursaday aabaheed buu ka doonay si hoose loogu mehriyay laakiin wuxuu ka qariyay naagtiisi iyo familkiisi waan garta munasar ma joogtaa waa joogaa gasma xaaladan dhageyso bal naagtan bahweynta ah warba iskama haysa waxay u qabtaa ninka kaligiis inuu qabo oo iyada bas aha la qabo gabadhana waa la qabo waxaan irmaaninka dabadna heed hebloy maxaa arintan kugu wato maxaa ka heshaa markaasay tiri 3 qodob baan dheerahay tiri naagta dega markaasaa ii sheeg waxa dheerta horta lacag waan dheerahay tiri biilka dheeri aha la isiyaa ko isticmaalna waan dheerahay tiri subaxi gurigiisa salaad subaxda markuu ka soo tukado gurigaygu imaada wuu quraacdaa arigiisu iska baashaala 3 saac buu shaqadiisa aadaa duhurka gurigaygu soo harsadaa wuu qadeeyaa wuu seexdaa 10 saac shaqadiisu aadaa maqribki markuu soo tukado gurigaygu imaada wuu casheeyaa waa la ila joogaa 3 saac haweenimo gurigeedu oohida maxay ka ogtahay tiri marka naag xaafada markuu tagana wuxuu leeyahay tiri maanta oo dhan baan suuqa taagnaa wax ma cuni kare digir bas ii keen waa nin maanta oo dhan waxay tiri falfal iyo adduun loo karinahay horta taas waa dheerahay tiri oo 3 waqtiba biilka aanu isiiyaa hadduu cunug iga xanuunsado ama aan xanaaqana lacag waxaan dheerahay tiri aana midda kale loo quurin midda kale hadduu cunug ka xanuunsadana waxaa la leeyahay tiri bajaaj qaado oo cunuga adiga isbitaalka geysa lacag baan kuu soo dirayaa horta mid waa midaas midda kale oo adinka aan in weydiinayana waxay tahay gabdhihii hore way heerimi jireen ama dharka guriga haddii loo soo dhigo oo lala baxo baa lala tegi jiray maxay marka ka qabtaa adinka hadda doodan diinteeda aad leedihiin waa xaaraan dadka hore xaan bay nagu wada dhaleen warka intaas uu iiga mas'aladaas aad u adag tahay munasar haddaad ka jawaabayso hawshaas ku soco inta baanka refresh tiraadana waxaad ku sii wadaa laynka gabadha Fatima ay marayso inkastoo xabsan laga booday xabsada diyaartay waa marsiin kartaa Salma iyo waxa isku xiga Fartuun iyo Cabdirazaaq saas u laynka ku soconayaan aad uma santahay Cabdilaanto waan tukanayaa ku soconay ma sha Allah ilaaha ka aqbalo aad iyo aad Cabdilaanto qodob muhiim ah walaasheen ka dhawaajisay muxuu ahaa arintan waxa waaye runtii waxay u baahan tahay khubarada muddada dheer ahaa maaragtay ama dumar ha noqdaan ama rag ha noqdaan reerka dhisay muddo dheer maaragtay qoys u dhisnaa sida saaxiibkeen ilaaha barakeeye Maxamed Daaq marka asaga u diin doonaa taas inuu maaragtay horta bal aragtidiisa ka dhaho kadibna qodobkan qudbasirada oo dooda uu yahay oo ah wax fiican miya ama waa wax xun runtii aragtidu uu kala duwan yahay oo dooda waay laakiin qayb kamid waxaan soo gelin karnaa oo ah iyadana yaa dhiirageliya horta in qudbasiro ay imaado ma labada qofood ayaa isku dhiirageliya inay isku qudbasireystaan caqabad iyo dhibaato ka jirta darteed qoysaska ama cabsi ha noqoto oo qoyska laga qabo ama qoyska oo isku diida labada qof oo israba ayay ka dhalataa taasna waa faaqay doona marka gabadha mayga garaacisay ee ku xigtayna waa siinayna ee ahayd Fartuun laakiin Maxamed mar arinta hadda ay sheegtay abaayaha nooga waran Maxamed soo dhawaadana maqlay aad ma santahay munasar adiga iyo teamka gudahan runtii arinka laga hadlayo hadaytu bilowga hore telefoonay waxa ay mashquuliye cafwan waa idinka cudur daaraya markii hore waxaan sheegay waxani wax horta
culturally dhaqankeena ka mid noqday bay mar ahayd oo dee qudbasirada iyo masaafada iyo wax isu dhadhow waaye soomaalidan dad badan oo ka mid abaa adduunka markuu soo biirayeen nolosha noocaas kusoo biiray waayadaas wixii sababta u ahaabaa weli mandaqada iyo dhulka soomaalida weli ka jira waxaa ka mid ah waayadaas dhaqanka waxaa ku jira in dee hanti badan qofka reerka gabadha ay ku baxdo sidii si la eg hadda waxaa isku biirsaday dhaqaalihii haba meesha ka baxaba culays yuusan lahaanin cunsuriyad iyo qabiil iyo waxyaala lamidana weli meelo ka mida dhulka soomaalida waa looga dhaqmaa taasi waxay marka saamaxday dhiirigelin waxaan qabaa waalidka soomaaliyeed intiisa badan ma aha laakiin qayb ka midii iyaga ku sameeyey dhiirigelin in gabadhii loo suurad xumeeyo qofkii ay keensato iyadoo qabiil laga eegayo ama dana gaar oo dhaqaale iyo xaalad kaloo jirto laga fiirnayo marka waxay ku habboon tahay in marka hore wacyigelinta noocaan haddaan rabno inaan samayno oo la joojinayo dhaqankaas uu weli sii socda in waalidka loo sheego la baro qiyamka diinta iyo dhaqanka soomaalida ee ah in dadka la cunsuriyeynin qabiil loo saarin xaalad dhaqaale xumo qofka lagu xumaynin gabadha aan la dhihin waxaad u qalantaa qof noocaasee ninkan uma qalantid waxyaalahaas oo dhan laakiin inta aan weli dhahayno diinteenu nama ogola sida nama ogola waxyaala ka liito oo ka daran baa hadda dhaca oo dadan isguursan baa mararka qaar dee ilmo kala dhalay oo xaalado badan baa marka taas waxa weeye waxay u baahan tahay oo keliya sida looga hortegi karo in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan waalidka loo sheego muhiimadda ay leedahay in gabadhooda qofka ay u dooqayaan ay ku dooqaan oo eegaan dadnimadiisa qofnimadiisa sharafkiisa iyo karaamadiisa laakiin aan lagu eegin arrinta qabyaaladda iyo wixii la xiriira dhaqaalaha ah hadda ma habboon tahay ma fiican tahay iyo ma la samayn karaa haddaan dhahno lama samayn karana cid joojinaysa maleh haddaan dhahno ma habboon cid joojinaysa maleh laakiin maxaarantimaynteeda iyo wanaajinteedana waxay gelaysaa diin iyo fiqi iyo kitaabay nala gelaysaa annagana waxaa laga yaabaa inaan waxyaala badan oo looga cilmi badan yahay aanan waxaan ku habboonayn kan idhaahno dadna hadhow ay ku dhaqmaan hadday cidi ku dhaqanto waxa annaga u sheegno waxay keenaysaa in dembiga hadhow wixii adduunka marka laga tago naloo qabsado marka taas marka kasoo tagno marka waxaan u baahannaha oo keliya wacyigelinta bulshada lagu sareeyo in tixgelin gaara la siiyo qofkan qaangaarka ah qofka uu keensaday laga eego haddaanu balwadaha oo kale waxyaalaha dhibta qoysaska burburiya ka mid tahay qofka oo dee diinta aan ku wanaagsanayn waxay ka mid tahay waxyaalaha qoysaska burburiya qofka meelahaas ha loogu soo durxulo hala dhaho qofkan waa taariku salaad hala dhaho qofkan balwad noocaasuu leeyahay waxyaalahaas ha loogu soo durxulo laakiin inta weli la riixayo la leeyahay qabyaaladda iyo dhaqaalaha laga eegayo anigu meelo badan oo dhulka soomaalida ah baan tegey oo aan usoo joogay dad badanna waa arkay oo bulshadan ku dhex jiraayo oo ka shaqeeya marka waxa cabashada ugu weyn ay tahay waa dhaqaalaha qoysas badan ayaan arkay oo ka cabanaya in waxa ugu weyn ee guryahooda burburiyey ama wixii naftooda ay rabtay looga hor istaagay ay ku dhaceen haadaana qatara macnaa gabadha waxa laga hor istaagaya qof ay keensatay iyadoo awoodda ugu weyn la saaray dhaqaale ama qabiil gabadhi markadan waxay ku dhacaysaa meeshii meel kasii liidato sumcad xumo iyo dhibaato gurigooda ay usoo jiido marka waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin xayndaabka guriga ee hooyada iyo aabaha iyo waalidka intiisa kale in wacyigelinta laga sameeyo aad waa mahadsantii munasar iyo cabdi iyo guud ahaan tiimka iyo aan ku darsada wax haddaanay saf ku socon safay ku socota xamso haddaad noo yar joogayso amaad ku darsanayso ku darsan laakiin safay noogu socotay marka hore aan idinka boodnay marka ku soo xamse adigoo soo koobay niyo waad mahadsan tahay arrinta laga hadlayaana arrin aad muhiim u ah waaye hadda casrigana waqtiga la joogana ama jiilka aynu ku jirnana lala kowsatayo aad ugu dhex jirtay bulshada waaye waxaan rabaa marka laga hadlaayo in dib ugu laabano dhaqankeena anigu diiniyan kama hadli doono because of diinta waa lagaga fiican yahay laakiin dhaqanka ayaan fiirin doonaa qudbasiruhu wax soo jirayoon soo naqaanimo yahay mise waa wax baahi gadaasheen timid oo inta waqtigu keenay iyo casriga la joogaa keentay la rabo in la xalaaleeyo ama la xaaraantinimeeyo horta dhaqankeenii hore 10 nooc buu guurku ahaan jiray midna qudbasiruhu kuma jiro meelna kagama jiro gabdhuhu waxay noqon jireen 10 nooc buu guurku mid noqon jiray gabdhuhu heerinka sida gabadhaasi sheegtay uu noqon jiray marka heerinkaan rabaa inaan in yar macneeyo gabadh wax laga yaabaa inay si kale u taqaano heerinku ma ahayn wax ay gabadha iyo wiilku heshiis ku yihiin oo meel inta la isla tago wax la isla qiimeeyo
heerinku waxay ahayd gabdhuhu marka la guursan waayo ee da'da ku yara weynaato inta dhowr isku raacaan ayay deegaanka la tegi jireen kadibna reer ayay u geli jireen saasaana hablaha lagu guursan jiro odhan jiray habla heerina reerka jooga guur ka mid guurkaasoo ahaa mid kaloo waxaa jira isagana la yidhaahdo sahansasho gabadha waxay soo arkaysaa wiil bay arkaysaa ama wiil bay ka helaysaa wiilkaas isaga toos tegi maysa waxay soo ogaanaysaa reerka uu ka yimid dabadeed guriga ayay geli jirtay gabadhu oo reerkaasi u hooyan jirtay deeta waxaa la dhigi jiray gabadha joogta marka labana geeri ayaa keento guurka soomaalida oo waa dumaasha waxaa la dhahaa iyo xigsiisanto dumaashana way naqaanaayo xigsiisantona waa ninka xaaskiisu markay dhimato gabadh walaasheeda la siin jiray labana waxay ku iman jireen boob iyo dhac oo waa mid weyn naqaanaayo la baxsasho waa inay wiilkii gabadhu intay isla heshiiyaan isla tagaan kabacdi marka isla tagaan lasoo wargeliyo reerka kale reerkooda iyo mid dhabar garaaco oo reerku berigaa hore waxaa la samayn jiray gabadha jaanis laguma heli jirin markay dhaanka iyo waxaa doonto ayaa wiilkii asxaabtiisu inta la hadhaan gabadha reerkasaa ku geersan jireen oo wax laisla ogaabuu ahaa laisgalmada soo hadli jiray guurka labana waxay ahaayeen toosoo haasaawahan iyo isasiinta iyaguna waa dee si fiicanaa loo wada garanaya guurka soomaalida laba kaloo iyaguna waxaa ku jiro tobnaad oo bogsiin la dho godob reeb laba reeraa isdilaayo si aan labada reer godobtooda usoo laaban baa habla laysa siinaya iyo ku qaadasho inuu wiilka quruxda gabadha wax u dhimo kabacdi saa lagu siiyo horta guurka soomaalida naqaani kaas waa marka waxa kuu soo muuqanaysa oo kuu caddaanaysa inuusan qodba sirri dhaqanka soomaalida meel kaga jirin taas waa marka haddaba qodba siraha loo soo laabto casriga aynu joogno inaynu ka tusaale qaadano oo aynu la jaan dhigno aynu barbar dhigno oo aynu ku cabirno maskaxda iyo miqyaaskiina wahay dhaqankii caynkaas ahaa automatic waa laga soo tegey magaalaa la soo galay waa la soo wada socofaray magaaladii baa la isugu yimid waxbaa la bartay adduunkii baa lagu xidhmay technology baa yimid waxaynu baranay goor ah in isfahan labada qof isku fahmaan isfahankii baa la isku guursan jiray dhaqanka soomaalida meel la kaga mu jirin bal waalidkeen dib ugu laabta nolosha arki maysid qof soomaaliya oo ku dhahaya caqabad waxa igu ahaan jirtay dhaqaale lagama wada hadi jirin dhaqaale ceeb bay ahaan jirtay soomaalida gabadhu inta badanna ninka ay keensato lagalama hadi jirin iyadaa xoolihiisii soo ogaanaysaa inta geela u joogtuu soo ogaanaysaa reerkoodu kama hadli jirin inantaasi ninkeedu waa keensatay wuxuu haysto gabadha iyada sideeda uga soo heli jirtay taas waay hadda waqtiga aan joogno wixii oo dhan waa isbedelay caqabadii koobaad waxay noqotay dhaqaale dhaqaalihii baa la keenayaa 100 shuruudood oo ku xidhmay oo casriga hadda jooga baa la keenayaa haddana quality-ga iyo sii joogista iyo wada noolaanshaha iyo dhismaha reerkaasi uu ka quality liitaa marka loo eego guurka hore Soomaalida way adag tahay qoysas Soomaaliyeed waa 10% ama wax ka yar isla gaadhay in 8 caruur isla dhalaan oo isla ag joogaan isaguna meel kale aanu fiirsanin iyaduna aan meel kale tigano kaligood isku eekaaban su'aasha meesha taala markaas u baahan in la iska weydiiyo waxa waay war maxaa inaga tayo iyo taran yareeyay Soomaalidii hore inako ka xoolo iyo dhaqasho badan waxaan qabaa Soomaalidii ma jeclayn inaan dhaho laakiin runta in laga sheego halkeeday tahay Soomaalida iimaankii baa ka tagay adduun baynaan iimaansanin mansab iyo darajiinaan iimaansanin reer iyo gabadh iyo xilaynaan iimaansanaynin wax ina xidhayaan jirin ninku wax kastoo haysta maanta kuma iimaan qabo waxaad arkaysaa mid isagii baktiyayo oo intuu wax bartay reerku weliba reerku gabadh iska soo guursaday oo loo bilo haddana kule ilaahay afar iiban waxaad arkaysaa mid inta reerku isugu tegalayna waa reerka matalo oo halkaa jooga xildhibaan baatay marka wixii uu meesha tago wasiir buu sii raadinay waxaad arkaysaa mid dukaan yar loo furayo bakhaar sii raadinay marka waxaan qabaa Soomaalidii casriga hadda aan joogno meeshii waxa ka baxay wax iimaanka la dhihi jiray taasi qodob waaye qodobka labaadna waxa weeye wixii guurku xiisaha iyo macnaha u yeeli jiray ayaaba hadda banaanka lagu sii sameeyaa si simple because of guurku marka aad rabto inaad guri gasho aanad hore u gelin waxa gudaha ku jira walaalo hadda waqtiga la joogo hadda intii yareeda ee reerku guriga la tegi jiray lala ninku gabadha naagta ugu ahayd ninkuna gabadha ninka ugu ahaa ayaa horta hadda banaanka lagu sii sameeyayo macsidiiba inuu noqotay wax sahala marka waxaa aaminsanahay
qodba siruhu meelna dhaqankeena kagama jiro diiniyan culummadu hadday inoo xalaalaynaysa hadday inoo xaaraaminaysa waa halkeeda intaasaa ku darsanaya waxaan anugu ku talinayaa waa ragow ilaahay baa wax bixiye dumarka hala iimaansado hal gabadh oo ilaahay iimaankeeda kugu xasiliyo ayaa waxay kaaga tahay iyo karaamo iyo sharaf badnaanaysaa 3 naagoon isku hayn karin waa ka baxay aad baad u mahadsantahay xamse wallahi xamse runtii aniga wax badan baan ka faa'iiday wax badan runtii 100% wax baan ka faa'iiday waa sababta doodaha sidan oo kale waxyaabo badan maartay qofku uga faa'iideysanayo intii waqti marba hadda waqti bixinaysa inaad ka faa'iideysato dadka sidan oo kale inagu dhex jira oo hadda wariyaasha animation la joogo wax garadka oo maskaxda leh ay kamid ka yihiin runtii aad baan ugu faraxsanahay xamse inaad sharaxaada dheerood aad bixisay aniga runtii wax badan baan ka faa'iiday caawa oo ku faa'iidayay oo ay kamid tahay runtii waxyaabo badan oo hadda aad ka carafka aad ku dhufanaysay sidoo kale waan la qabaa arrinta uu sheegayo in banaanka la isku goosanayo oo wixii caadis ka noqdeen qodobka kale oo gabdhaha in xabadaada maartay marka hore laga fiirsado markaad ayada aad heshana aad ayada iska adkayso taasna waan kugu raacsanahay qodobka ahaa in banaanka la isku goosanayo oo maartay ka hor maartay taas laftirkeeda waxaan dhihi lahaa laga waantoobo adeer muudgal adoo mahadsan walaal muudgal si bartakool barnaamijku noogu socdaa dad xigmad la meesha ku jira aqli la maskax leh waanu ka faa'iideysanaynaa waxay noo mareysay xabse baan ka soo boodnay hadday diyaar tahay si aan cadaalad u farno mikrofoonka soo gargaraa haddii aad diyaar ahayn oo dhegeysta ka noqonaysana waad mahadsan tahay salma haddaad diyaar tahay aday ku mareysay ugaas ka hadlay salma ayaa ku xigta fortuna ayaa ku xigta salma maqal ma jiraa walaal doodii waa dabcan doodii waad maqlaysay dadka dib nagaga soo biirayna barnaamijka habeen gareeyaan ciwaanka waa la idin waad aragtaan barnaamijkana sida hadda bartakool kale ana loogu dhageysto shaqadiina suulkana wata ku socmay sister السلام عليكم دمان الموضوع ده هور قالوا رسول صلى الله عليه وسلم وحود هاي لا نكاح إلا بولي معنى هذا وتهي نكاح مجرى بلا ولي الآن ان dadka oo soo suubiyo ficilkaas camal hadii ogeyn xukunkiisa ee jaayilkii markay qadka ayaa ka gogaya salma qadka ayaa ka yar gogaya nafti maqal ma jira hadda salma maqal ma jira I think call baa soo galay markaas oo kale qofka uu codkiisa saa uga go salma haddaad nagu soo laabanayso sii wado asxaabta kale binkaysa telefoon ku soo galay asxaabta binkaysa dadka ha soo saarina dadkan markay dhamaadaan baan inta kalena aan ra'yigooda aruurinana ra'yi aruur baan samaynaa markaas hawsha inaga go'aan ka gaarina hal baan ka gaarina salma ku soo ha ku soo my sister lagu maqlay marka hore ka yar gogay ku soo waxaan dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay laa nikaaxa ilaa biwali macnaheedu nikaax ma jiro wali la'aan marka taas waxay cadeynaysaa inuu ficilkan yani xaraam tahay thank you waad mahadsantahay waraash aad baad mahadsan tahay muudka noogu laabo fartuun ma sister maqal ma jiraa halo asalaamu calaykum waadi salaam walaalahay dhammaan waxaan si qaas u salaamayaa wariyaheena weyn munasar iyo fanaankeenna cabdidaanto maanta oo dhan waa idin dhegeysanaaye waa maaragtay mawduucaad qurux badan mana arkin hadda ka hor iyadoo meediyaha looga hadlaayo run ahaantii qudbasiradana sida hore loo sheegaba dhaqanka Soomaaliyeed kama mid aha oo Soomaalidu waxay dhaqan hore u lahaan jireen qof walba uu ogyahay qudbasiradana ma fiicno marba hadeesan ma aragtay isan banaaneen waxa qurux badan in la iska dhaafo gabdhahana waxa leeyahay gabar walba daruuf baa ku qasabtay in ma aragtay qudbasira ay gasho waayo ma aragtay niyada kama jecla gabar walba waxay jeceshahay in si sharaf leh loo guursado waalidkeed ogaada u hambaliyeeyo marka waxaa leeyahay gabdhaha xitaa haddii dhacdo daruuf oo waalidka ku diido waxaa helaysaa birito waalidkan inuu ku ogol yahay uu ku faraxsan yahay hadduu maanta waalidkan ninkan ku faraxsaneen waxba ha qudbasiraysanin warkiisana ha maqlin iska daa
qaado ducada waalidka iyadaa ku muhiim ah asigana sidoo kale gabadhi loo diidayo qodba siraysanin waayo gabdhaha waa iska ognahay waa maaragta iska qalbi jilacsan yihiin marka qodba sirada iyo waxa wadana waa ragga waxaa leeyahay gabdhaha ka daaya isku xishooda waa walaalihiina nin walaashii in la qodba siraysto jecel ma jiro intaasaa ugu baxay waana mahadsan tahay thank you abay thank you cabdirazaaq maqal ma jiraa lagu cabdirazaaq walaal dadka biinka haysto dad bay sii hormarinayaan dib le usii dhacaynahay ma dadka biinka haysta fadlan qof nagu soo saaro waa idin barya dadka biinka haysta sida idin ixtiraama waa idin barya sida idin ixtiraama thank you ku soo waxay maraysay cabdirazaaq wiilka ugu qoranta maqansa maqal ma jira cabdirazaaq dad baa maanta dhulmudka ku jira say hal mar ulaan qof cusub haddana keena sabaalkii kor buu maraya cabdirazaaq maqal ma jira halow okay cabdirazaaq maqal ma jira okay maxamed maqal ma jira maxamed ilmi my brother welcome bro ku soo cabdirazaaq waa dejinaya ku soo hoosa geenaya laakiin waan islaamayaa inta meesha ku jirto qodobtarada marka la dhaho waan dareemi karnaa maanta gabadha wiilaa la dhashay aabbaa joogo barnaamijka inoo biingareeya asxaabay barnaamijka inoo biingareeya waa mahadsantihiin ku soo my brother maanta ninka ragga ah saan dareemayno hadda wiilasha wada ka warqabnaa nin ragga maanta walaashii qodobtar lagu guursado maanta ayadoo oo cidda loo sheegin banaanka lagula baashaalo ama uur loo yeelo ama maanta ninkaasta walaashaa qabo dhibaatadii xanuunka oo ninka raggaa dareemi karo inta raggaa meesha ku jirtaa og waalidka aabbaha marka la asna culayska dhibaatada dareemi karo oo meeshaas sumcad darada ceebta uga imaaneedo ilaaha og gabdhaha waxaan leenahay waxa bartaan gabadha markii diin barato ama maadi ay barato maanta gabadh dhakhtarada ama injineera qiimo ay leedahay waa ognahay gabdhahan way ogyihiin maanta qof wax bartay oo qiimo leh waxa waaye xataa dadka fahmka laga doonayo qiimaha laga bixinayo iyo sidii loo maamuusayo iyo sidii sharafta loo guursanayo ilaaha og dadkan ogyihiin macnaha gabadh quruxdeeda gabadh inay qurxoon tahay inay dheer tahay inay caddahay qurux maahan gabadha quruxdeeda waa qiimaha isku yeesho iyo inay wax barato oo familkeeda maanta waalidka meel nolosha ugu quruxda badan ayuu kula jecel kula doonaa marka adiga haddaa ka dabareegto cunug iska dhalinyaro ah oo iska ciyaal xaafadeeda been kuugu sheekeeyo nolol fiican aan kuu haynin oo waxbaa kuu qoslo waa ku jeclaa waxaad mustaqbal ku noqomeedo ilaa awlaad buu kusii doonaa awlaadaada inaad u fiirido u dooqdo aabbo qurux badan ilmaha mustaqbal u yeelo oo qiimo leh waalidkaa kula jecel yihiin kula garab taagi inaa hesho maanta haddii waalidkaa qof qurux badan oo mustaqbal ay kuu keenaan hadduu qof kugu xumaado xitaa waalidkaa waxay leeyihin gabadheena noo dhaaf walaalkaa wuxuu leeyahay gabadheena noo dhaaf waalidka weli beri uu garab taagin qof kale ama nolol kale oo qurux badan kula sii rabaan laakiin haddaa niyad jibido ee aad ka raacdin dhalinyaro aan waalidkaa raalli ka ahayn waaye dhibaataya leedahay marka gabdhaha kow waxaan leeyahay kula dardaarma wax barta gabadh dhakhtarada ah gabadha injineerka ah gabadha diinka baratay xijaaban qiime leedahay waa laisku sheega waxaa leeyahay niyow maanta ninka cabdidhaantahay gabar ninaa maanta guur rabo lacag haysto qiime leh wuxuu leeyahay gabadhaan rabo waxaa leeyahay cabdidhaanta gabadha joogtaa ama nasar u joogtaa war gabar qurux badan oo wadaada u joogta guri aan kasoo bixin waxa waaye waa loo imaastaa leeyno gabadhaan kaa rabaa waa ninkan u diidaa kan u diidaa wuu sii kala dooqanaa aabiya waxa waaye qalbi fiican u yeelanaa qofka isleeyahay gabadhaada maasha allah qiime leedahay gabar qiimo badan waaye qof aad u qiimo badan la raadinaya marka waxa la barto intaad ku gabeen aan baasantiin thank you aad baad mahadsan tahay yarka ugu qoran tahay madaxweynaha kala hoos السلام عليكم وعليكم السلام محمد علمي ولا المدقل دمان كوسا مدحوينها كلا hoos دمان waa idin salaamay cabdidhaanto maxamed iyo munasar iyo dhammaan inta meesha ku jirtaba aad idin salaama salaamu calaykum alaykum salaam warahmatullah midda koowaad horta markii la dhaho khudbad sirada horta hore ma xalaal ama waa xaaraan horta hore wariyaasheena meesha ku jiro ayagaa laga rabaa horta hore dadka diinta u saaxiibka ah sida culummada inay weydiiyaan ee dood ka qabtaan aniga waxaan ka hadli karnaa wixii ra'yi ahaan iyo aqliyan oo ilaahayna siiyey aan ku qiyaasi karnaa oo ku cabiri karnaa marka ani horta hore waxaa usoo waxyaabo oo horta hore aan usoo joogay oo soo arkan way jiraa mar aan hadda intaan qurbaha imaanin oo miyiga aan tegey waxyaabo aan kusoo arkan way jiraan waxyaabo oo hadda oo xamse wiilka degayna uu ka dhawaajino way jiraan horta hore waagii hore waxaa jiri jirta wax la dhaho gabadha xoolay raacaysaa wiilkana xooluu jiraa geel jiro waaye marka habeenkii ayaa waxaa la iskugu imaan jiray wiilka waa soo labisanaa waa issoo diyaarinaa waa soo carfinaa
wax la dhaha dhadeysi abaadiyaha ka jiro oo aadaa waagii hore dhadeysigaas marka waxaa laga yaabaa 15 rag ah oo wada doobab ah inay meesha kusoo wada xaadiraan hal gabarna ay tahay wixii wiilkaas waxaa ku kalifi kara marka inuu gabadha oo la dhuunto in waalidkeedoo kaletood xurguf ay ka dhexayso ama uusan isleeyahay dhalinyaro markii leeyahane si xun u fikirka waa nugu badan yahay oo macnaha si qaldana aan u fikirnaa oo sababtoo ah marmarka qaar waalidkii aan aday ka aragnaayo magaalada nala joogo sidaas daraaddeed in gabadhii lala aadana waa macquul oo khudba sira sidaas wiilku la aado ama asigoo gabdha wiilashaas la joogo oo 15kaas kala dhuumanayo kaletood inuu macnaha sidaas khudba siro gabadhii kula dhuuntaabeen soo nikaaxsado keeno iyo in aabihiisa oo magaalada joogo oo u soo arkoodo oo dhaho warnayo hebel oo saaxiibkaya gabar asturan oo wanaagsan oo xoolaha ku wanaagsanaa niyo u joogtay wiilkiigina ku darsadaa rabaa saas u doono sidaasna waa la isku guursan jiray midda kaletood oo raba inaa ka hadlan waxay tahay horta hore soomaalida gun waxaa lagu tilmaami jiray ninka xoolaha ka hadlo sida cuntada xoolaha sida ariga lo'da geela guurka oo kaleeto markay imaado waalidka gabadha dhalo wuxuu sheegto hadal lagama geli jirin waxaa la dhihi jiray waxaan siinayna xataa gogol fadhiisigii aanoo soo gogol fadhiisateen iyo geeli gabadhaan ku guursanayn iyo wixii dhamay marka sidaas daraaddeed waxaa dhihi lahaa horta gabdhaha soomaaliyeed oo hadda jiro iyo wiilasha hadda jiro gabar walba waxaa waarta wiilaa la dhashay birina wiilaa guursanaayo ma jeclid walaashaada in macnaha si qaldan loo guurso waxaa jeceshaa in inta lagu soo gogol fadhiisto si sharaf la adoo labisan oo inaa ku xirto marka wixii hore danaa geyn jirtay haddana dan inay geysaan laga yaaba horta hore maxaaraana mase xalaalne culimmada ka jawaabi doonto marka waxaa idin leeyahay nin walbana asoo gabar dhaqan kara inuu guursado kii dhaqan waayana waagi hore waxaa jiri jirtay nimayahow wax la dhaho gabadh iyo wiil markay isguursanaa haddii wiilka sabool uu yahay ehelkiisa waxaa laga soo aruuri jiray qaaraan wax la dhaho xoolo iyo aqalka wixii lagu dhisi lahay wixii dhammaa waa loo guurinaa waa loo dhisaa kadib marka wiilkaas sidoo oo ku dhaqan jiray reerkiisa hadda laakiin ma jirto sababtoo ah hadda nin walba wuxuu ka fikiraa kumi ku dar been ma kuu sheega artur kumi ku darkaas woona gaabis oo naga dhigay xataa dowladdeeni waxayna dadkeeni shacabkeeni wallahi gaabis oo ka dhigay sababtoo hadda coronavirus asoo ka jiro waddankeena ayaa kumi ku dar laga sii fikiraa marka waxaa dhihi lahaa walaalayaal yaan laga fikirin gunta xoolahana dadka guna ayay ka dhigtaa marka gunnimada yaa laga fikirina laga fikiro gabadha walaashaa si loo guursan lahaa inaad gabadha kale u guursato xoolo wax ma dhibaayo laakiin ilmahay kuu dhalayso awlaadda iyo adiga say kuu daryeelayso ka fiiri insha allah marka waxaa rajeynaa dhalinyarada inay fahanto intaasaan kusoo gabagabeynaa aadaan idin salaama muudkaa ku laaban aad baad u mahadsan tahay dadka barnaamijka danaynaya waxaad moodaa inay kulli si fiican loo wada dhegeysanaya aniga runtii aad buu ii qanciyey dad badan yani talooyinkooda wax badan oo iga maqnaa waan fahmay waxa marka noogu xigtaa sacdiya gabadha ugu qorantaa sacdiya saciid aday ayay ku maraysaa mikrofoonka waxaa kaloon idin xasuusinayaa fadlan hal isfilow gareeyo asxaabta dad fiican meesha ku jira si maartay la isu maartay barto oo si fiican la isugu barto asxaabta boqol naga raalli ahaada hadda wax yar baan idinla soo jirnaa waa la idin soo wada saarayaa bahashu halkeeda ayay ka soconaysaa dadka kor saarana meeshooda ayay joogayaan qaar ama waan dejinaynaa sida idinku qanacsantiin soona kooba hadda 3 qof 4 qof baa noo dhiman dadka meesha saaran 4 qof waxaan rajaynaynaa inay ka wax 2 minute aan dhannayn ka yar inay kusoo koobaan muhiimadda waa laga wada hadlaya ra'yigaaga soo tur laakiin tafaasiil dheer qofku hadduu galo waxa weeye wixii sharaxaad dheer waxba u baahanaysaa oo dadkii hoos joogay oo meesha ka baahnaa inay wax noo faa'iideeyaan iyagana faa'iideystaan way ku sii adkaanaysaa ayaan hadalka sii badinna waxay maraysaa sacdiya ku socomaysista haddaad maqlayso sacdiya sii marka wada mahadsantahay walaalkay cabdi dhammaan waana inta meesha kaalisininkan waa mahadsantiin sida wanaagsan uga hadasheen ani fikirkayga anuu soo koobaya haddaa ka hadlo qodbasirada horta ani sideedaba ma aaminsanay qodbasirada waxaan aaminsanahay hadday dhacdana ilmaha xaan yihiin waa wax la diiday gabarna ma mehersato weligeeda la-aanteed sideedaba haddii qofkan aad keensatay oo aad dooratay waalidka kuu diiday oo kudhaah kuguma darayno hadday noqoto arrimo wax walba oo waalidka kuugu diido wax laga jira sila wiilkan u xun yahay hadduu kasta yahay
so haddaa ku raacdin adilee qaata riski noloshaada aad ku bahdilaysid gabarey adilee doorbiday nolol yariisa oo shiikh yariisa ee waxaa soo fikirkeyga aniga haddaa idiin soo koobo ma aaminsani waana mahadsantihiin dhammaantiin aad baad mahadsantahay Salma ku soco halkaa ka sii wad my sister Salma walaalo okay Salma ku soco السلام عليكم horta waxaa la yidhahaa Salmo Nuur Shiikh waxaan joogaa Muqdisho barasho wanaagsan haddii aan guda galo barnaamijkan horta barnaamij aad u soo dhaweynayo waayo aad u wanaagsan kana mid ah barnaamijyada dhiirigelinta iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo dadka waaweyn kulliba waalidiinta marka barnaamijkan ani waa soo koobay waqtigu kooban iyo dadku aad ugu jiraan qadka marka waxaan ka hadlayaa 3 qodob barnaamijkan ciwaankan khudbasirada ee dadka dhahan horta ani ahaanteyda waxaan u aqaanaa khudbada la akhrinayo oo sir ah ee dhahan meel calashaan sir lagu soo khudbasir lagu soo meheriyay naagta laakiin gabadhii la khudbada lama sirin khudbada waa la akhriyay qaraabadii yaa la siray oo gabadhoodii guriga u joogto laakiin waa gabar mehersan oo nin isku soo xirtay qaraabo sir waay anisa erigaas aan u hayaa marka sababaha keeno haddii aan soo koobo main pointigiis waxaan dhihi lahay waxaa keena horta shuruudaha badan ee waalidka ay sameeyaan dadka gabdhaha markay yar yihiin lagu sameeyo iyo wiilasha dhalinyarada ee la hordhigo ay ka mid tahay maalka ay ka mid tahay qabiilka midda ugu wanaagsan oo shuruudaha ka dhigtaan waalidka la dhihi lahaa ay tahay balwad wiil balwad leh ma raba dee tiraad waalidka wax iska obina laakiin haddii maal lagu xiro haddii qabiil lagu xiro inay dhalinyaradii ayaga hooshooda waalidkii oo nool ay sameeyaan ay sabab u noqonay okay waa sababaha midda kale waxaan dhihi lahaa qodob kale oo point gareenahay waxa waaye ceebaha uu leeyahay khudbasirada markii dhalinyarada ay isku soo sameeyaan waxaa imaanayso xaaraan inay gabadhii maxaa la jiray khudbasirada markay soo sameyso oo nikaax hadduu doono meelo qaadanaado ee ayaga xaaraan meelaha aan munaasab ahayn isku soo isticmaalaan ee saas ku dhacdo wiil dhalinyara oo wax haysanin oo maxaa la jiray haddii inta loo fududeeyo gurigiisa iska dhaqmo oo walaad wanaag iska dhali lahaa haddii shuruudihii la hor dhigay waxay ma hayso inuu biri fudeed inta wax ku sameeyo gabadha sirto khudbasiro been iska soo sameysto waxaa ka dhalanayo ilmo garace walaad garace oo hadhoodii uu inkiraa cunugi ma hayo shuruudii la soo dhigay anima dhalinbo amba waxa leeyahay qabiilkaas ma gursan ma aha anima arkin gabadhiin cunugii gabadhi uur ay leedahay gabadhi meeshaasiti waxaa ka imaanaya cunug oo wacale waxaa kaloo dhibka ugu weyn oo yahay diinta iyo dhaqankiina waxaa ku imaanaya dibadhac weyn iyo anshax xumo iyo basar xumadaas meesha ka bilaabanaysa okay waa ceebaha uu leeyahay khudbasirada waxaa qodobka kaleeto waxaa waaye sidee horta ku burburi karnaa dhaqankaanid dhaqan walbo oo xumaana oo imaado waxaa la soo xabaabo oo ka hortag in la sameeyo ka hortag hadda ma sameyn karno waa fiafay laakiin sidee uu sameyn karnaa in dhaqankaas laga tago kuwa horta ani waxaan ku aanin lahaa waalidka iyo wiilkiisa ma hooyada iyo gabadheeda waa inay xiriirka uu ka dhaxeeyaa hooyada marka aad gabar tahay oo wili shukaansi aadan bilaabin oo taqaanid dabeecadeeda oo taqaanid qofkay jeceshaha qofkay necabta hooy maal jecel hooy dhaqan jecel hooy diin jecel hooy qabiil jecel haday tahay adi hooyada koodiba wiilka marka aad shukaansiisin abow saasan lacag iyo qofka markuu haysto waxay hooyada jeceshahay aa koodiba inaad ka bees gareysatid oo qofkii hooyada shuruudaha jeceshaha wiilkan u dhameystiran la shukaanso haddaa jeclaatidna waa kaasa hooyada hadhowdan kugu diidi doonto bees gareeba beeskaada ha ahaado waalidka dadiisa markaa taqaanid qofka akoodii la bilaabaysidna dabeecadiisa ku bees gareehe okay in diin dhiirigelin in la sameeyo waxaa sidee ku sameyn karnaa waa mugta dhaqankan goyntaankiis dhiirigelin badan in dhalinyarada lagu sameeyo wacyigelinta la badiyo iyo in diinta si fiican loo barto diinta waxyaabay naga xaaraantinimaysaa jiro waxyaabo mubaaxaa jiro waxyaabo karaahiyaha jiro waxyaabo xaaraana jiro diinta markii la barto qofka markuu dhalinyaro yahay waxa u furan iyo waxa ka xiran markuu kala barto intiiba la isku dhicin oo xaaraan waxaas imaanin qofka optionka iyo waxiisa inuu categoriga u mari lahaa uu aqoonsaha diinta markii la barto oo maadiga la barto oo cilmiga la barto gabar iyo wiil oo dhalinyarada waxa la baro ayaga is hogaamin karo hadhoodii wax isku dhac iyo waxaas ma imaanayaan waana mahadsantihiin aad baad mahadsan tahay walaashay
runtii waanu aqbalay waxa weeyaan taladaada. Cabdicasiis cali ayay baraysaa. Waxaan rabnaa inaan cadaalad fadno, qof walbana uu si cadaalada ku helo mikrofoonka. Cabdicasiis maqal ma jiraa? waxaan codsanayaa in lasoo koobo. Yarta gabadha ugu qorantaa maqal ma jiraa? Yarta riyada. Okay, qofkan diyaar ahayn waa loo yarta riyada ku socota. salaam dhamaantiin. Waan kaa qaadnay codka kor u qaad, samecadaha muudka oo iska hagaaji. Khudbasirada ayaa laga hadlayaa. Dabcan waana dhegeysanaysa oo ku jeeda maanta dhawaa joogtay ku soco. horta walaa ani qudbasirada wax laama waa aaminsanimteeda kaleete wax walba horta calaf waaye. qofkan ma dhihi kartid inuu qofkii maanta waalidka hadduu diido adiga ma dhihi kartid qofkan waa diidi karaa, inkastoo calaf uu jiro dad saas fudeed uu ku qaado way jiraan. dadna yacni waxa horta qofaa calafaada isku lehma oo ismeersan karta inaa aaminsanaani. Okay. Thank you walaash, waa mahadsan tahay. haddaa kusii soconayso waa kusii socon karta. hadda intaa kaaga egtayna waa okay. ku soco mise waa intaas kaaga egtay. Okay, mood bay gashay. Thank you walaash, sidaad noogu soo gaabisay. Najuush gabadha ugu qoran tahay maraysaa. dadka kale ayaan soo saarayaa barnaamijka noo bingareeya. Najuush ku soco qodbasirada. Najuush maqal ma jiraa sister? Okay, Karimo ku soo my sister. qodbasirada ayaa laga hadlayay. topica uu socda hadda hal saac wax ka yar wax ku dhow buu noo socdaa. daqiiqadahana dad badan baa hoos fadhiyo rabnaa inaan soo saarna. hadda bilaabanaa meega marka noo soo kabinaad ku soco. hayes salaamu calaykum dhammaantiin dadka meesha ku jira waan salaamaya. anigu kolley horta qudbasirada anigu waxaan u haystaba inay naagaha dumarka waaweyne iyo nimanka naagaha qabaan inay isku qarsan jireen maba ogeynba dad dhalinyara inay isqudbasiraystaan. but anyway qudbasiro waa xaaraan, waa wax oo weligaagi uu jooga ma aha. so anigu waxaan aaminsanahay inay tahay xaaraan. so dadka dhalinyarta waxa ku kalifaya hadday tahay qabiil ama lacag la-aan, waxaan dhihi lahaa dadka waaweyne waalidiinta inay u fududeeyaan guurka oo qabiilka iyo lacagta la iska daayo, diinta laga raaco. qofku inuu akhlaaq leeyahay, diin leeyahay lagu doorto. gabadhiina wiilka idin kaansato inaan loo diidin, saynan waxaan u dhicin ayaan maxay tolay anigu aan ku talinayaa. waadna mahadsantihiin, saasaan idinkaga baxa. aad baad umahadsan tahay walaashay. haddii uu maqal jiro kuwiin maqal ma jiraa? ha inaad power Okay, thank you moodkaaga noo gal. Thank you my sister. waxaan soo saaraynaa najuus ku soco. najuus waa lagaa booda ku soco. qofna in laga taga ma rabno. dadka kalean soo saaraynaa hadda barnaamijka hala bingaray. ku soco najuush. asalaamu calaykum. alaykum salaam. ku soco hore ka soco. salaanta qalbigan ka qaada. ku soco. qudbasiradu waa horta waa xaaraan. hablahan sida annaga oo kaleeta ma fiicno markaa inay qudbasirada xallaay geedkii la koraa oradaa looga degadaa. geedka orod lagu koro orodaa looga degaa. Okay, mana la fiicno markaa marka raggana inay qudbasirada naga dhaafaana fiican oo waalidka sida xushmad loogu tago oo la dhaho gabadhan hadduusan ninka waxaysan gabadhan aan lagu daro waa maama wax ma haysto ama aabba wax ma haysto. taasaa ila fiican. waa soo gaabiya. asalaamu calaykum. aad baad umahadsan tahay. xamse maqal ma jiraa? okay, xayaad maqal ma jira? xayaad cilmi ah. ha adiga layga ku hore ka bilow 10 noogu soo saar. amaal ku soo. amaal qudbasirada laga hadlaya. amaal sadiq sister. وإني سلامة يا دمان كل لما سعون برنامج لكن تدبون كل جيست ولا شيء كريمة دي كل أنت تروى عني ونيدين لا هاي مت كل يوم بان أوران لها هبلها هرت واحد قرية قرن باكوشرة قف بلي آدم كأنا دي أنت بلي آدم أظن وشهاي ودي قرن أد كوشرته وح خدات قري شهر تم بركو بان أوران لها waxay wax kasta ku qurux badan yihiin markii maaragtay ay official yihiin
xag diiniyan iyo xag dhaqan iyo xag sharafba marka inantu waxaan dhihi lahaa marnaba yaysan yeelin waxaan qurbasurada iyo waxa la dhahay magaceeda xataa way dhibaaba xataa inay iska dayso waxaa loo qaatay eeba intaasoo sana iska sugto maaragtay aysan ku gelin ninka raggaay dee inanta waxaa kula taliya ama dee ay ku wada tashtaan ee ku dhaqmana waxaa ila wanaagsan haddaad inanta uu doonaya ama dee uu rabo inuu dee awooddeedii iyo kartideedii uu yeesho ninka ragga ah intaasaan uga baxaya aad baad mahadsantahay xayaad jooji hadda marka halkaas noogu jooji cabdikariim bay ku socota cabdikariim fardan timcada ninka ku qoranta muu tag galo hello 1 2 3 cabdikariim ku socda brother cabdikariim okay arab ku soo arab ninka ku qoranta ku soo mise king baan ka booday king ninka ku qoranta khaliga cabdilaan taageerahayna waa ahay waa mahadsantahay ku soo khudbasirada ka waran see aragtaa king c kc adiga waa khudbasirada see aragtaa okay dib mana qofku iska ha adiga waa ha see aragtaa khudbasirada hello ku soo walaal qudbasirada anugu se aaminsanahay waa xalaal maxaa yeelay waa meher waxaa laga yaabaa ninka wiilka inuu duruufaysan yahay oosan dhaqaalihii uu naagtaas uu ku biilan lahaa ama uu lacag badan saadaadeed mar haddii iyagu raaliska yihiin oo isjecelna uu jiro waxa walaayadda waxa la wareegaya shiikha gabadhaas meherinaya laba shuhuudana waa loo sameynaa marka khudbasireedu walaal waa xalaal anu saamisana falowna kada in la isku celiyo waa la diiday kareemo in qofka lagu celiyo haddii kala dood bay noqonaysaa dadku way badan yihiin waa nin dhalinyara sawirkiis markaa aragtay wuxuu aaminsan yahay ayuu ka hadlay muud ha galo waa taariikh sagal qofka u qoran tahay mise arab ma ka boodnay arab ma baxay sagal ku soo okay السلام عليكم دمان وين سأل عليكم السلام موضوع سافرتين هرت مانت قريب ونوع ما حلال مي هاي أم سو حرام هت كم دودين ولو دوجدت أغلبيا إنه وح منطقي يسجرين أنا هاي وح يعني صح marka waxaan isleeyahay horta waa sax baledkan uu ku badan yahay wadanka uu ku badan yahay aqlabiyan marka waxaan isleeyahay aniga ra'yigay horta laba sabab jirta dadka isticmaalaya kelmadaas macnaa sheeg waxaan ku wadaa khudbasiro waxaa isticmaalaya xalaalaysanaya idmiinis waxaan isleeyahay nin caqli leh oo mas-uuliyad qaadi karo karti leh ma umaleynaya waxaas inuu isticmaalayo just broken man iska isticmaalayo waxaasna waxaan isleeyahay waa marin habaabin gabdhaha yarka lagu marin habaabinayo marka daway kaliya aan ku xalin karno waxay tahay wacyigelin inaan sameyno from beginning cunugta gabdhaha markay qaan gaarayaan kor laga soo bilaabo iskoolaadka aan ka bilaawno wacyigelin gabdhahan in la sameeyo gabdhihii wiilalba aqlabiyan in wacyigelin la sameeyo loo sheego waxaan waalidkooda raalli ka ahayn nafsadooda aan heer gaarsiin karin inaynan gelin marnaba waa ninka khudbasirada sheeganaya mas-uuliyad ma qaadi karayo gabadhaas wuxuu kusoo baxay beri wuu ku inkaraya uu ka tegaya waxba ma qaadi karayo marka saas darteed waxaan leeyahay wacyigelin baa looga bixi karaya in la sameeyo gabdhaha la wacyigeliyo la dhiirigeliyo daweygaasna looga bixi karo asalaamu calaykum waa mahadsantiin walaal aad baad u mahadsan tahay gacantaa soo taagta dadka hoos ku jira qofkii fikiradaas maanta dhan meesha laga sheegayay dadkii dhegeystay gaar ahaan maya dadka gacantaa soo taagta dadkii la socday dadkii mawduuca la socday oo maanta noo joogay gacanta soo taagta annagoon gacanta furin qofka gacanta markuu taagto oo meesha gacanta u taagto waan arkaynaa dhag baan soo siinaynaa okay gacantaas ka xidhnaato dadka gacanta soo taagta waxaa kamid ah gacanta soo taaga fadlan meesha mikrofoonka qaybinaynaa qofka raba inuu ku darsado aan sheegaynay السلام عليكم كدر سنكر يعني وحير وكير مقنا okay ku soo عدنات أنا أخذ درسنا يا سعب أنا أخذ درسنا يا كينكي
kingi sug hadda kingi sug waa markaaga waa qaadatay okay digriya ku soco walaal aad baan idiin salaamay horta dhammaantiin والله يبو ده zakariya qofka ku qorantay mudgal ku soco aad baan idiin salaamayaa horta dhammaantiin waxaa kaleeto oon ka yara cudur daaranayaa in kolley qolka qofka soo sameeyey magaca titleka uu u sameeyey isaga oo luuqadda soomaaliga si wanaagsan u qori karo inuu ku yara ciyaaro ayadana taas aad baan uga cudur daaranayaa waxaan rajaynayaa insha allah marka xigto in sida wanaagsan ay luuqadeenu u qurux badan tahay in loo soo qoro loo soo saxo iyo sidana loo soo baray macallimiinteena inay noo soo bareen intaas markaan u gudbo barnaamijka laga hadlayo wax badan kama ogsooni laakiin inta aan maqlay oon dhagaha ka maqlay iyo inkastoo deegaanada qofku uu kusoo barbaaray aysan deegaankayga aysan ku badnayn waxaan u malaynayaa waxaasoo dhan markii la isku soo duuduubo inay iskugu imanayso qofku inuu diintu wax ka barto haba yar in yarba ha yar noqoto 30% 40% hadaad diinta ka barato wax badan bay kuu furfuraysaa wax badan baad ka baranaysaa waxa kuu wanaagsan waxa kuu xun wax meel ku geynaya waxaasoo dhan guurkaaga system waxyaaba badan bay ku baraysaa marka ani waxaan idiin sheegayaa in diintu ay iftiinkeeda iyo fahamkeeda la badiyo ayada unbaa wax walba noo ah markaynaga aad baad u mahadsantihiin aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan mikrofoonka siiyo meega aan rabaa inaan siiyo xidig maqal hadduu jiro xidig maqal ma jiraa xidig ka maqan yahay gacanta soo tagta hantiile ninka ku qoranta hantiile okay hantiile ku jirtaa meega ku soo hantiile ku soo haa بسم الله horta aad iyo aad u salaaman tahay cabdilaanto nin culus yacnaa taageersanaha tahay maasha allah ayaadan ku salaamaa asxaabta ku jirto macnaha gruupkan aadaan u salaamaa dhammaan iyo ragga soo abaabulay arrintan ana shaqo fiican aad qabateen maasha allah waxaan rabaa inaan walaalkay ra'yigiisa waxaana waa diin waxaana waa fikir horta diinta ilaahay ma ogolo gabdho badan oo daa iga horeeyaa sheegay xadiiska waxaa ka mid ah laa nikaaxa ilaa biwaliyin يعني نكاح مجرى إلا ولي معهن يعني ما أنصح نكاحس وحجر معهن يعني أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث صحيح ونبي قصد عمدة الحكام حديث حكوية لا بلوغ مران كوية لا أو معناه أو قري إنه حاجة على عسقلاني رحمه الله مركز تصوت سومالي وين وهذا مدة اللبات أقل جامعة خلاص اللابتو وسليم كا waxaan weydiin lahaa walaalkay dhahay macnaha waa ogolahay walaasha in la qubsado istamarata de nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yimid wuxuu yiri rasuulka ilaahay inaan jinaystaan rabaa markaasuu nabiga macnaha idinli macnaha bizina taasuu nabiga ku yiri markaasuu wuxuu yiri nabiga ilaahay walaasha in laga jinaystaan marata maya eedada maya hooyada marata may markaasuu ummadda kalena waa la mid adiga walaasha in la qubsado istamarata waa su'aal koob macnaha ilmaha dhashay in laga boobo adoo ogeyn nin la garanayn wuxuu yahay oo ka dafo ka dulqaado leen gabadha ilmaha waa la koriyaa waqtiga la geliyaa qarashaa galo xoolaa galo waa soo korisay xoolaa meel iska ordaya maaha gabdhuhu waqti baa soo galay aabayaasha fiican gabdhuhu waqti fiican bay geliyaan marka waqtiga gabadhii la geliyaa rabta inaad macnaha iska qaadato laan qofkaan ninkaan aabahan caqli buu leeyahay gabadhii waxbuu u qorsheeyey waxbuu meel u diyaariyey waxbuu baan u samaystay hadda adiga marka iska boobto iyo tug baa tahay taas macnaha qaa'im baa tahay tug baa tahay maxaa yeelay nin xoolihiisa xaday nin xoolihiisa wuxuu kusoo hantibeelay xaday nabigana wuxuu leeyahay ilmaha aad dhashay xoolahooda abaa iska leh xadiis saxiixa waaye marka ninka xoolihiisa ilmaha uu dhalo waa xoolihiisa weeye yacni wuxuu ilaahay siiye weeye marka haddaa adiga ka xaddo tug baa tahay taas waa mid weeye annaga gabdhaha noo joogo wiilana waan leenahay maasha allah laakiin waxaa fiican qofka inuu markuu hadlaayo waa inaad caqli inaad hawaani iskaga hadashaa way iska dhacda maahan waa inaad caqliga saliimka dib ugu laabataa caqliga fikirka saliimka ah oo ilaahay yiri laa tabdiila likhalqi illaah yacni dalika addiinu alqayim qofka inuu dib ugu laabtaa fiican markuu hadlaayo yani inaad iska hadashid macnaha ma ahan
gabdhaha maasha allah si fiican ay u hadleen waa soo dhaweynaa gabdha fiican meesha ku jira maasha barakaysan ilahay ha idin barakeeyo يعني wax jira ma ahan diiniyana ma banaano aqaliyana ma banaano xadiisna waa sheegnay quraanka ayada ku sugan oo saxiixa macnaha oo quraanka macnaha culimada ay u daliishadaan ku jiraan marka dhaqankaasna qaas Soomaaliya laga yaqaanaa caalamka kale lama qabaan caalamka kale ma gaala masar lama adduunka Yemen iyo mana la qabaan Sacuudiga mana la qabaan waxay yaqaaniin ma anaga naqaano Soomaaliya bis inta kale aawe kuwaas diin la'aan miyaa anaga diin haysan miyaa marka su'aalaha dadka in la weydiiyo ku fiican waana mahadsantihiin insha Allah wax waa dhiirayir hal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad baad mahadsan tahay qofka u qoran tahay laac ka soco xidig السلام عليكم ama xidigow muudgal wiil iyo gabadh wiil iyo gabadh baan ka dhigaynaa Suzaana ku soco xidig baa ku xigay markaas Cabdalla Maariya saasan ka dhigayn Suzaana ku soco عبدو انا حكاها باش تفوتني اوكي xidig waa Ismaaciil ku soo socota okay xidig ku soco ku soco xidig صح السلام عليكم دمانتين والسلام يا عبد دانتو taan kan aad hore lagu ilaaliyo ku soco عبد دانتو aad baan kuu salaamayaa dhammaan akhyaarta kale ee qolka ku jirtana waan salaamayaa ni horta maaragtay dadku kolley gabdho fiican oo akhyaar ah ayaa qolka ku jira iyo wiilal akhyaar ah kolley muhiimadiina waa laga wada hadlay laakiin alcumuuman waxaan isku raacsanahay sideedaba khudbasiradu inay xaaraam tahay diintuna ayna ogoleen taawna isla ogol lahay dhinaca dhaqankeena aad iyo aad bay arrintaasi ugu liidataa waana wax aynu hadaynu soomaalinahay aynu caadaysanay soomaalida waxay tidhahdaa waxaad qarsatid wuu ku qarsadaa arrintani marka ugu horeysa waxay dhibaysaa gabadha sababtoo ah gabadh yahay dee ninku qarsaday dee waxa weeyaan inuu hadhowna ku dhaqan karay lama ah ninku qarsaday hadhowna kuma dhaqan karo marka waxa weeye sideedaba marka gabadha la meherinayo maaragtay dadka loo sheegayo xaflad la qabanayo micnaheedu waxa weeyaan waragow wardadow ogaada gabadhani shalay single bay ahayd laakiin maanta ma aha shalay waalidkeed baa hayay mas-uuliyaddeeda maantana ninkanaa qaaday ha la ogaado ha laga weecda weeyaan waxaad gartay ma laakiin marka gabadha la qarsado meel lala galo mataqaanaa la guursado dee hadhowna ninkuu inkirayaa marka insha allah intaasan kusoo koobaya cabdiraanto aad baan kuu salaamayaa khiyaarta kalena wada salaamaya assalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay Cabdalla ku soco Cabdalla عبدو دول ما تنسى عبدو adaa baxay oo ku soo laabatay saaxib saasaa lagaga booday adaa baxay marka qofku markuu baxo laynkood ka baxaysaa laakiin waa kusoo marsiinayna Cabdalla ku soco بسم الله الرحمن الرحيم أما سنتين بعد ما نجرت وكان قد ku soco maqal ma jiro Cabdalla qadka ka xun Cabdikariim Abdurrahim Cabdalla ku soo laabtay Cabdurrahim ku soco internet kan xoolo iga marka muhiimad warka ugu weyn waxay tahay qodbasiradu anigu maanta ma dhihi karno waa dambi aniguna ma dhihi karo marka raali hada qadka ay waxaan hore u socdo cabdi waxaan rabi lahayn abwaan gabaydhuux baa ku jira isagana in aan ka faa'iidaysano waa nin aad dhaqanka iyo xikmadiisu ay aad u fiican tahay dad Soomaaliyeed jecel yihiin abwaanka marka haduu maqlaayo inaan soo dhawaana jeclaan lahaa maadaama wax badan oo mawduucan ku saabsan uu fahmi karo noona sharaxi karo aad baad mahadsan tahay soo dhaweynaya haddaan arkay layn baan ku soconay Cabdurrahim ku soco hadduu qofku haddaad gaadhi wadda uu khadku kaa xun yahay
meesha khudbad cabdi maxaa ka halay socota dhaafiyo halay dhaafiyo meeshaas abwaanka marka ka baxaan kusoo laabanaa thank you ibrahim ku soo ibrahim qofka ku qoran tahay cadaalad baan sameynaynaa online bay ku socotay waa laygu qeylinayaa haddii kale haddaan lineka ka buudo abwaanka mala hadda 2 qof aa ka horeysa ku soo cabdirahiim alo asalaamu calaykum calaykum assalaam ku soo waa lay maqlayaa waan filayaa dhammaantiin ninkaan hadda magaciiga ku hadlaya ninkaan laga qabto cabdiraxiin maahan ibrahim iyo cabdiraxiin labay kala yihiin okay cafwan cabdirahiim haddaad iga horreyso waa iga hormari ka dhac waa iga hormari ka dhac qaado ana sirkiga jaalis yara rabaa shukran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamay runtii barnaamijku barnaamij aad u xiisara weeye ma rabo inaan ku dheeraado waxa weeye hadalka waa qodobeysanaya insha allah wixii dalaa'ila runtii waxa weeye halkan hantiile baan dhegaysanayo runtii aan aad uga helay dalaa'ishu soo qaatay oo aan la aragti ahay waxa weeye waxaan ku darsanayaa keliya waxa weeye hal qodob oo ah nima yahow horta bahashani waxa weeye waxaanu dareensannahay ama caqliga markii loo eego in waxa weeye ay wax laga fiican yahay ama xaaraan ay tahay ba caqliyan inuu kuu soo qabanayo marka ugu horreysa bahashan bahal laga fiican yahay inay tahay midda labaad waxaan aragnaa mar weliba waqtigan aynu joogno in waxa weeye qof aad aragti dhahayo wareer dadkii horeba war dadkii horeba waa samayn jireen war ma awowgay baa waxa weeye baasha igu dhalay khiyaali igu dhalay nimayo horta jawga in la kala saaro aad iyo aad baa waxa weeye u muhiimsan tahay jawiga nimanyahow in la kala saaro iyo gabdhow aad iyo aad bay u muhiimsan tahay runtii waxaan dareemayaa marka awowgay labaad ama saddexaadba waqtiga wadciga uu ku nool yahay ama ku noolaa iyo maantadan xitaa inaysan isku mid ahayn waxaan dareemi karnaa soomaalidu dhaqanka meelo badan oo ay ku fiican tahay oo dadka uga horumarsan tahay waa jidhaa meelo ay ku yara kakan tahayna waa jidhaa oo ku adag tahay maantay qofka dhalinyaradaahi markuu waxa weeye uu rabo damacsan yahay inuu guursado oo meel dego oo waxa weeye si xalaala waxa weeye wax u quutaa ama reer u dhistaa dabcan waxaan u malaynayaa waqtiga wuxuu u saamaxayaa in qofkaas waxa weeye uu calmaday uu si sharaf badan oo waxa weeye gobol fadhiisad leh inuu reerkiisa uga doono runta markaynu isu sheegnay oo qofka aan sharafta rabin weeye wax baashaa ku dhuudhuunta oo aan qoyska inuu qoys si fiican u dhaqda aan rabin waa markii caqli runta laga hadlo baashaa intaasaa ku dhuudhuumata dadkii hore haddaba maxaa dadkeenu uga dugan yahay cilladaha uu xilligaa ku qallafsanaa maxaa ka mid a shuruudo fara badan inay jireen caqabaduhu inay iska badan yihiin marka waqtiga marnaba maanta joogaa laguma dherarin karo kii hore waxa weeye haddee qoladii jiilkii xilligaa noolayd shuyuukh baa laftigooda la noolayd waxa weeye aragtidu jawi kale ka dugan bay ahayd maanta jawiga aynu taagannahay waa jawi gabadha maanta anigu aan dhalay aan u diyaarinayo inay aan heer waxa weeye heer aad u sarreysa aan geeyo gabadhayda kadib aanan caqabad ku ahayn nolosheeda laftigeedu inay mustaqbal yeelato qof hooyo aad noqoto waxa weeye reerkeeda ay waxa weeye reer ay qofay ku qanacsan tahay ay waxa weeye la guri gasho xaas u noqoto dabcan waxaa dareemaynaa waqtiga lagu jiraa maanta waalidiinta joogaa inay badankood waxa weeye ay dareensan yihiin qofka ilmahooda ay ku aaminin karaan gabadhu waxa weeye waa awlaad aad waxa weeye loo jecel yahay weeye marka jawigaas quruxda badan qofku uga soo doono oo si qurux badan jawiga geed fariisiga uga soo doono maanta waxaan aaminsanahay inaysan caqabaduhu badnayn marka caqliga saliimka waa ku tusaya inaysan baashaas saxna ahayn lagana fiican yahay wasalaamu calaykum waa ka baxa aad baad umahadsan tahay walaale dabcan meeshan caawa si fiican baa lagu kala faa'iidaystay waxaan laakiin ka codsanayaa weli waxaad moodaa dadku hadalkeena ku dheeraanayaan saaxiibadiina kaloo hoos fadhiya intaad ka fikirtaan soo kooba hadalka markan waxaan ku xigeenayaa dhagayax yarka ugu qoran tahay dhalinyarada ismaaciil baa ku soco magacaaga waa laguma ciyaari kara ku soco cabdi ohe dhaafin hilmaamin hay bro yarkaasi anu waa sii yarkaasi okay cabdiraxiim ku soco
cabdiow waqti badanaa hoos joogay marka waxaan rabaa 1 iyo 2 daqiiqo inaa isiiso mawduucana baalka waxaan rabaa inaan si yar oo koobana uga baxo dhammaan bulshada waa salaamay meel kasta ay joogaan iyo maqaam kasta magac kasta ku fadhiyaan waxaan rabaa mawduuca waxalkii in waxa u malaysaa oo hal wado ku socdo oo wax baalkee dhaliila iyo wax qof fikir hal fikir inaan ilaa hadda ku wada soconno haddii waxa ay qalad yihiin aan qaladka wada qaadano hadday sax yihiinna aan saxda wada qaadano laakiin sax waaye haddana waa lagu sii socdaa marka ma fahmin ninaan waxaan qabaa daliilkan markii wiilasha masaakiimada guur ay doonaan kaliya loola soo baxayo oo diinta inta wiilashaas qusaysa kaliya laga soo qaadanayo aad u malayso hala joojiyo horta waalidiinta iyo shacabka iyo bulshadaba marka kaleetana meel la isaga ridayo meel la isaga tuurayo u malayso inaan diintiiba la iska hilmaamayo waxaa la sheegaya caawa dhan waa sax diinteena ku caddahay inay qabto baalke nikaax aan weligeeda joogin inaysan gabadha baalke oosan nikaax ahayn laakiin waxaan idiin sheegayaa gabar aan muxrimkeedu la socono 1 milyan oo kilomitir in ka badan miyay safri kartaa waxaa la rabaa baalke markaad meel wax ka firinaysid aad meesha kaleeto waalidka hadda aniga maanta qurbahan joogaa gabaraa waxay ka soo dhaqaaqday gaalkacyo ama gurceel ama dhuusamareeb ama cabudwaaq ama hargeysa ama muqdisho meelkii ay noqotaba waxay ugu imaato waddankan aan joogo tahriibayna soo martay gabadhaas markay ii imaato haddaan aniga iyada ta dhammaysana aan isguursano ma dembiyaan galay wax muxrima uma hayo wax walaayadeeda aan kala hadla uma hayo waxaan imaana waddan intaasna waxay soo eed bilaa muxrim waxayna soo safraysa waddan intaasoo kilomitir iyo intaasoo waddan intaas qaaradood cadow iyo af shabeell iyo af libaax iyo af goosi wax dhan bay kasoo badbaaday laga yaabo inaysa kasoo badbaaday cidna ma oga soo marka aniga waxaan aaminsanaha gabadhaas inaan la dhilgareeyo wax allaali wixii ay qabto maadaama aanan waalidka hadda kala hadli karin oon dhihi karin gabadhiina seef miya 100% farmaaninta dhalatay maantay ma gacantiina ku hayseen ma oga soo marka gabadhaas inaan la dhilgareeyo oo hadday khasaara soo gaartay haddii qaniya soo gaartaba aan idhahdo walaale waxaada dhan waa kugu qaatay